Maria weligeed hooyadeed Clara way jecleed. Clara waxay ahayd haweeney qalbi wanaagsan oo shaqaysato, ayada ayaa kaligeed soo korsatay Maria. Sidoo kale dadka deriskooda waxay u yaqaaneen kooladii isku haysay deriskooda oo dhan sababtoo ah wanaageeda. Clara waxay ahayd kalkaaliso, waxay ahayd nooca xilliga dambe shaqada ku harta si ay u ilaaliso dadka meeshaas joogo. Sidoo kalena markay deriskooda xanuustaan waxay u geeni jirtay cunto wanaagsan oo way booqan jirtay. Laakiin markii laga tago wanaageeda, Maria waxay arki jirtay wax uusan qof kale arkinba. Hooyadeed gadaasheeda waxa ahaa hoos, laakiin ma ahayn hooska caadiga ee qofku markay qoraxda qabato la arka markaasi. Midkani wuxuu ahaa hoos nool. Wuxuu ahaa hoos aad u dheer, wuxuuna sidoo kale u egyahay lafo fara dhaadheer ayuu leeyahay. Mar walbana wuxuu taagan yahay Clara gadaasheeda, ma uu ka dhaqaaqo. Dadka deriska ma arkaan, kaliyaatu waxaa aragta Maria hooskaas hooyadeed gadaasheeda taagan. Hooskaas weligiis intaas ma uu dhaafin, ma uu hadlin, cid kale ma uusan eegin. Qofka kaliya uu ag taagan yahay oo uu gadaashiisa u ka dhaqaaqina waxay ahayd Clara. Markii 5 sano laga soo wareegay oo ay markaasi hadda jirto Maria 12, Maria way la qabsatay hooskani sababtoo ah hooskani wax kale ma uusan sameyneynin. Hooyadeed gadaasheeda ayuu taagan yahay, ayadana ma uusan dhibaateen, Clarana ma uusan dhibaateen. Saas darteed Maria waxay iska dhaadhicisay inuusan weligiis hooskani uusan dhibaatoon doonin. Habeenada ka mid ah, Maria waxay ka soo booday hurdadii iyadoo aad u dhiidayso. Qolkeedu wuxuu ahaa mid aad u qabow, waxayba moodaa culays inuu xabadka ka saaran yahay, sida inuu qof xabadka kaga fadhiyo oo markaasi neefta ku celinayo. Qolkeeda geeskiisa waxaa taagnaa mugdi. Markii ugu horeysay nolosheeda, mugdigani ma uusan taagnayn hooyadeed gadaasheeda, waxa uu taagnaa Maria horteeda asagoo markaasi eegaya iyada. Dhoola cadayn aad u foolxun ayuu lahaa, waxaabad moodaa dhoola cadaynta weynankeeda inuu madaxa kala go'i rabo. Markii ugu horeysay nolosheeda ayuu la hadlay mugdigii, wuxuuna markaas ku dhahay hal erey been ayay kuu sheegtay. Subaxdii xigtay, Maria waxay aragtay isbeddel la yaab leh. Hooskii hooyadeed gadaasheeda ma uu taagnayn. Hadda wuxuu marmarayay guriga, markaasina mar walba wuxuu daawanayay Maria iyo hooyadeed. Muddo kadib, dil ayaa bilowday. Markii ugu horeysay waxay ahayd nin la yiraahdo Haris. Ninkaasi waxaa loo dilay si qaab daran oo waa la jarjaray. Waxaa laga dhex helay dukaankiisii oo markaasi khudaarta ku iibsan jiray. Ninkan wuxuu ahaa nin markasta la sheekaysan jiray Clara, haddana waxa kaliya laga aqoonsanay wuxuu ahaa madaxiisa. Dilkii xigay waxa uu ahaa ninkii markaasi fariimaha u keeni jiray Clara, asagoo si aad u qaab daran u dhintay ayaa la helay. Markaasi waxay aragtay Maria ayadoo markaasi dadkii ugu badnaayoo la hadlay Clara ay dhimanayeen, markay u badan yihiin ay yihiin rag oo si aad u qaab daran markaasi meydadkooda loo helayay. Maria waxay dareentay dilaalkani inuu ka dambeeyo hooskii hooyadeed daba taagnaan jiray, markana uu yahay mid aad u caraysan, caradiisana uu ku daynayo markaasi ragga badanaa la hadla Clara. Maria waxay raadisay markaasi jawaabo, ayadoo rabta jawaabo ayay waxay gashay guriga qaybtiisa sare. Markaasi waxay raadisay hooyadeed alaabaheeda qadiimiga. Waxay heshay box markaasi qadiimiya, waxaana gudihiisa ku dhex jiray warqado badan oo isku xiran iyo sidoo kale faraantiyo aroos iyo sawiro. Warqadahaasi waxay ka yimaadeen ninay ugu qoran tahay magaciisa Ethan. Ethanna wuxuu ahaa Maria aabaheed. Maria aabaheed weligeed lama kulmin. Markaasi Clara ayaa waxay ugu sheekaysay Maria in aabaheed uu dhintay ayadoo ilmo yar laakiin warqadaha waxa ku qoran sheeko kale ayay sheegayeenba. Warqaduhu waxay u badnaayeen kuwa jacayl iyo sidoo kale kuwa murugo ka muuqato. Warqadii ugu dambeysay markii taariikhdeeda eegtana waxaa lagu qoray far markaasi qalqaloocan, waxaana ku taalay waa ka shalayn doontaa Clara, igama kaxaysan kartid ilmahayga. Habeenkii markii la marayay ayay Maria markaasi hooyadeed weydiisay waxaan oo dhan. Markaasi Clara waxba ma aysan qarinba, oohin ayay bilowday, waxayna sheegtay runtii oo dhan. Sanado ka hor ayadoo markaasi isguursadeen Ethan kadib oo markaasi leedahay Maria uurkeeda ayay waxay jeclaatay qof kale. Markii ay dhashay ayay waxay damacday Ethan inay ka tagto. Markaasi Ethan waa uu xanaaqay, wuxuuna dhahay maadaama qof kale dartiisa iga tagaysid, ilmahayga aniga ayaa qaadanayo. Markaasi Clara waxay garatay ayadoo aad uga naxday arrintaasi inay markaasi Ethan dishay. Markii ay dishayna ay ku aastay gurigeeda meesha gadaale. Waxaan u qabeeyay tiri Clara
in arrintu xaggaasi ku dhammaanayso, laakiin ma aysan dhammaanin. Weligiisba igama tegin habeenkaas sidaan u dilayba. Gadaasheeda ayuu markasta taagan yahay. Waan arkay, haa, sidaad u arkaysay. Markaasi ma uusan iga tegin, ma uusan ii ogolaan inaan qof kale u tago. Mar walbana wuxuu dhibaato gaarsiin jiray nin kasta oo ila hadla. Markaasay Maariya garatay hooska markasta hooyadeed gadaasheeda taagan inuu ahaa aabbaheeda miskiinka oo dulmiga laga galay, kaasoo hadda caraysan, nafsadiisina ay nasan la'dahay. Wixii intaa ka dambeeyayba hooskii wuu ka sii daray. Habeenada ka mid ah iyadoo Maariya hurdo ayuu hooska u soo dhawaaday, wuxuuna dhegteeda ugu sheegay inay ka shalaayi doonto Clara. Markaasi Maariya waxay garatay inaysan markaasi ka fogaan karin hooskani, wax walba ay sameeyaan ugu dambeyn inuu wax gaarsiin doono hooyadeed. Markii ay xilliyadii maqribka marisay subaxdii xigtay ayay markaasi Maariya hor istaagtay hooskii oo sidii caadada ahaydba ka ag wareeganaya hooyadeed. Markaasi wuxuu ku tiri, waxaan rabaa inaad aniga i kaxaysatid. Aniga waxaan ahay gabadheeda. Haddaad aargoosi rabtid aniga i kaxayso, aniga i dil oo hooyaday iska daa. Markaas ayuu dhoola cadeeyay hooskii, wuxuuna dhahay, waa arrin aad u qurux badan, laakiin looma baahna. Clara oo arrintaasi arkaysay aadna uga naxday inay weyso gabadheeda ayaa waxay tiri, maya, ha iga kaxaysan gabadheeda. Markaasi waxay soo qaadatay mindi markaasi jikada taalay. Intaysa Maariya hadlinba, Clara mindidii ayay xabadka iska gelisay. Dhiig badan ayaa ka daatay, dhulka ayayna ku dhacday. Nafsada iyada ku sii baxaysa ayay tiri, gabadhayda iida. Markaasi hooskii aad ayuu u xanaaqay, sababtoo ah waxa uu rabay gacantiisa inuu ku dilo Clara. Markaasi Clara ayuu isku wareejiyay asagoo xanaaq saa'id ka muuqdo, wuxuuna dhahay, gacanteyda ayaa ku tagaysa. Markaas ayuu ku booday Clara, mugdigiisii ayaana qariyay. Meesha waxaa isqabsatay qayladii Clara iyo sidoo kale qayladii hooska ka soo baxayay. Say u qaylinayeen ayay hal mar wada aamuseen. Markaasna Maariya way weysay meelay ka baxeen Clara iyo sidoo kaleba hooskii. Xaggaas ayay labadoodiba ku baaba'een. Waxa kaliya aad meesha ku harin waxay ahayd mindidii dhiigga lahayd oo hooyadeed ay isgelisay. Maariya markaasi xabadka ayay ku haysay mindidii ayadoo ooyeyso. Waxay markaasi garatay in aabbaheedii nafsadiisii nasan weysay ee ugu dambeyn nasan doonto. Hooyadeedii markaasi dembiga geysatayna ee markaasi dembigeedii ugu dambeyn laga jaray.